bani dhaqameed aad u weyn oo ay ka qayb galayeen wadamo badan oo caalamka ka tirsan ayaa waxaa qayb ka ahaa ardayda jaamacadda Zaciim al-Azhari kuwa oo magaca Soomaaliya ku matalayay waxa ayna ka keeneen guulo waaweyn sida in dhaqankeena ay bartaan wadamadii la wadaagaya bandhig dhaqameedka waxyaabihii ay ku soo bandhigeen ardayda jaamacadda Zaciim al-Azhari ayaa waxaa ka mid ahaa dhaantooyin iyo cunooyinka kala gedisan aadka lagu yaqaan ummadda Soomaaliyeed waxaana martidii joogtay gabi ahaan bay ka maqsuudeen sida Soomaalidu qaniga ugu tahay dhaqankeeda soo jireenka ah waa kuwan qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii bandhig dhaqameedka oo la hadlay telefishinka Kalsan TV iyagoo ku faraxsan waxa indhahoodu soo arkeen bismillaahirrahmaanirrahiim marka hore ku bilaabo magacayga waa Axmed Maxamuud Xuseen jaamacadda Zaciim al-Azhari iyo Sahal Caama ka tirsan raabidada qaybta amaano cilaaqad qaadiya ama arrimaha dibadda maanta يعني waxaan ka qayb galnay oo soo bandhignay barnaamijkii qabanayeen waafidiinta ardayda waafidiinta ee dhigtaan jaamacadda Zaciim kuwaasoo ahaayeen todoba wadan oo kala ahaayeen Afghaan Soomaali Suuri barnaamijkii waxaan maanta si mutaqana habsamay uga qayb galnay bandhig faneed weyn oo ay soo qaabiyeen waafidiinta wadamada waafidiinta taasoo ay ka qayb galeen arday kala duwan oo wadamo kala duwan ka socotay waxaa si weyn uga qayb galay ardayda qaabidada jaamacadda Zaciim al-Azhari ومانت خبنيسو معرضك جانب كسو قنديغايا aad ay ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo macrad saan kale waan u mahadcelinayaa raabidada oo jaamacadda soo qaybqaabsi gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Zaciim al-Azhari Aadan Cabdulqaadir Aadantiin oo isagu ahaa qabanqaabiyaha guud ee bandhig dhaqameedkan ay ku matalayeen magaca Soomaaliyeed ayaa sheegay inay tahay wax lagu farxo kaalin muglan ay ka qaateen bandhig dhaqameedkaasi ay soo agaasimeen magacay waa Aadan Cabdulqaadir Tahil ku magaca Aadantiin waxaan ahay ardayda kamid ah sheegay jaamacadda Zaciim al-Azhari dad gudoomiyaasha aad u faraxsanahay maanta waxaan ku soo bandhignay meeshan jaamacadda ugu weyn Suudaan jaamacadda Zaciim al-Azhari معرضك ويناي بندق فنادكي Soomaalida ka qayb qaadan jirtay wadamo badan ajaanib badan ka soo qayb qaadatay maanta kaalin weyn aad uga qaadanay aad waxa uu mahadcelinay ka soo qayb galayaasha barnaamijka sida Kalsan TV inta badan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Suudaan ayaa iyagoo kuwa magaca Soomaaliyeed sare u qaada badanana soo jiita ummadaha kale ay wax la wadaagayaan Maxamed Ciise Koona Kalsan TV Khartoum Suudaan